بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي دقالي هذا شرفت بدنيد إتشعلد أن جعلا كسود وهذا صحن صح روحي عافمات بإذن الله كريم ما أنتم حاربين إن شاء الله إذن وداقو سامبوس يبر sambuuska burka waan ogahay waa wax gabadh kasta taqaano balaakiin waxaa laga yaabaa gabadh yar oo Soomaaliyeed oo iyadoo yar wadanka ka soo tagtay ama wadanka joogto iyadoo yarba timi oo familkeedii joogin inay ka faa'iideysataa dhici karta wiil Soomaaliyeed oo dhalinyaro ah asagana inuu ka faa'iideysto samaysto hadaba waa iska galab casri ahaan baan u sameeyay waxaan u sameeyay holiday maadaama lagu jiro inaan iska samaysto dariskayga ciidaha dariskaygana insha Allah aan la sheer gareeyo cuntada Soomaaliga ama cuntada wadankeeni ama maartay islaamku inuu yahay mid dadka wax la wadaaga insha Allah بإذن الله كريم iyo sidii aan u sameeyay waxaan soo qaatay hilibka lo'da oo ah kama aragtay aan baruurta lahayn oo inta badan laga sameeyo steak laga sameesto aan baruurta lahayn baan soo qaatay oo inta badan kaasaan isticmaalaa baan soo qaaday waxaan aad iyo aad uga xumahay khudaarta intaan diyaarsaday iyo xawaajadii aan ku dirayay ayaa maaragtay fiidiyowgii ma aqaan meel iga aaday waan waayay laakiin hadda waa kana insha Allah waa iska arki doontaan hadda marka hilibka biyahaas waan ka faxfaxina markuu faxfaxo oo biyahaas liqo waan hilibku badanaa wuu isku yara dhegdhegaa waan ka ilaalinayaa yacni caadi xabad uu kala foqaan rabaa markuu shiilmo insha Allah waxaan ku darayaa maraq digaagii aan hadda ka hor samaystay oo xamarta iyo xulbada iyo dhirta aan ka sameeyay kii hadda freezerkan ka soo saaray marka biyo barafkii baa ka dhalaalay intaas aan ku shiilayaa insha Allah iyo cusbadii kabacdi waxaan ku soo daray basal baar ta greenka ah iyo basasha caadiga ah oo ah xoogaa dhowr xabaa basasha cas waxaan ku daray toon iyo kamsaro gadaal hadda marka hilibka markuu aan ka xumaa fiidiyowgu sira daba maray insha Allah laakiin waa iska fahmaysaan waa kana hadana marka hilibkii markuu basashii shaaxiday oo hadii kale hadda bacaq biyaha ku soo baxaya waxaan ku dari doonaa insha Allah kaarotaduna sidoo kale markay shiilanto ay isla shiilmadaan waxaan ku darayaa xawaajka loo yaqaan xawaaj buurbuurka iyo basbaas xabashiga ama Itoobiyaanka ama basbaaska caadiga hadba kaad markaa haysatid laakiin xabashiga badanaa waxaan basbaas Itoobiyaanka u isticmaalaa xulbad badan buu leeyahay anigana cuntada xulbada badan baan jecelahay oo inuu udgoonta wayna caafimaad badan tahay marka basashii markii biyihii ka dhamaaday basashii awl hilibkan qalajiyay basashii toonta iyo waxaan labada basalood iyo toontan ku daray hadana waxaan ku darayaa kaarotada haddaan markii hore basasha kula dari lahaa bacaq bay iga noqon lahayd way iga bacaqi lahayd laakiin ma rabin bacaqa hadhow sambuusku burka cun marka la isdhaw wuu qoyaanaanayaa marka waan qalajiyay maasha Allah way isla shiilantay cusbada maasha Allah waa u dheelitiray dhinaca kale waxaa iigu xashan jabaatigii kimistii aan ka sameynaya burkii laakiin aad baan uga xumahay fiidiyowga waan sameeyay ka khudaarta iyo ka burka markaan sameynayayba laakiin ma aqaan fiidiyowgaas wuu iga dhiliid garaysmaday meelu aaday baan la yaabanay ilaa hadda burka waan isleekaysiiyay wuuna yaryar yahay kaamarada waa weynaysiinaysa laakiin wuu yaryar yahay ogaada oo dhinaca kale khudaarta iyo hilibkii waa ii samaysmaday burka marka laba soo saaraya marka xabada in yar baan fidiyay saliid baan korka ka marinayaa tii kale halka ayadana igu diyaarsan baan korka ka saaraya waan isleekaysiinayaa markaan isleekaysiiyo ayaan fidinayaa saasaan u jarjarayaa Soomaaliya maqalibaha weyn baa la saari jiray aw waxba waa la wada saari jiray laakiin kan wuu yar yahay marka saa daraadeed saasaan u saarayaa khafiif baan fooliyada ka dhigay laana ma rabo inaan dacalada dhinacyada ka jarjaro iga khasaaroodo khafiif baan ka dhigay wax yar baan kimista googoostay burka googoostay and then markaan saa sameeyo labada dhinac baan u gadinayaa waan kala fujinayaa ilaa hoosta ma iskaga dhigisay saliida kala celinaysay waan kala fujinayaa fooliyada waxaan ku gurtay baaquli tuwaalkaas afka ka saaray tuwaalka ha u bixinina burka waxa ku yaala waa burkii saasaan ugu gurtay waa la huuriyaa seena kaaga qalalinin markaad kala fujisidna gadis baa la soo saaraa yaani dhinaca kale loo kala rogaa marka la isku dabdaboolayo fooliyada sida hadda korka ay soo saaran tahay sida ma aragtay waxay isku kimista korka la iska saara camal oo laakiin kala gadisa okay fooliyadii hilibkii waan ku gurtay maasha Allah saasaan isugu cabeeyay
bur baan qooshtay burka waxaan ku kooleynaya sambuuskan ku kooleyn dad baa biyo isticmaala laakiin biyaha aniga mar walba inuu iga bajaqayaan ka baqaa waxaan sameeyay burkaas aan ku kooleynaya fartaan darsanaya waqtigaas aan ugu kooleynaya dhinaca kale waxaa iigu lawaxaan oo waxa seekolka u go'an ama sida oo u go'an waxa weeyaan waa burka waxaan ku daray sonkor cusbo wax yar oo fixiso ah iyo 3 xabo ukun ah iyo caano booraha boodarka ah oo boodarka baan ku daray dadka qaar burkan si kale u sameeyaan mandaasi bay dhahaan laakiin anaga saasan ku soo bartay in maaragtay burka saas loo sameesto ma sha Allah بعدين marka u horeysa burka shiilaya laana burku malaha qashin malaha burkan hor shiilaya markaan burka shiilo sambuuska ku xijinaya insha Allah biidmilaahi kariim waadna arki doontaan waa kaasa burka koobkaasan ku jarjaray inta dhexda ku jirtana iyada hadhowta caadi baan iyada intaan maqaska ugu jarjaray ama midida baan shiilaya haddaba aad iyo aad baa u mahadsantiin waxaan rajeynayaa inaad ka wada heshaan intaan video dhexdan kaga jiro waxaan ka codsanayaa subscribe share comment iyo like insha Allah Allah idin barakeeyo soo wada dhawaada sambuuski waa kana kan shaandhada ku jira waa kaasa burkii dhinacyada waa kaas dheerka ku jira oo kii aan maarta koob ku jira waa kaasa sambuuska kan badan waxaan u geynayaa aabaha iyo hooyaday markaan leeyahay maaha aabaha iyo hooyaday waa oday islaan cadaan ah oo dariskayga oo in badan soo gacan qabtay booska aabaha iyo hooyaday ii galay inta kale ee yaryarna waxaan u geynayaa darisyada dhinacyadayga wareegsan mid milki baar haysta oo meesha caanaha xaas lagu gadgado dad fiican ah iyo laba reer oo mid Malaysia ka yimaadeen reer Malaysia iyo kuwa ah iyagana xaafadana la degan Australia laakiin odayga iyo islaanta ka waxa badan baan u geynayaa aniga ciyaalkaygana waa anaga xaqana kula hadhnay aad bay cuntada Soomaalida u jecel yihiin especially sambuuska aad iyo aad bay dadka cadaanka u jecel yihiin waxa meel kasta Soomaalidu way yaqaaniin inay jecel yihiin odayga iyo islaantana waxaan aabahay ugu wacay booskii aabahay iyo hooyadaba ii galeen aad bay gacan qabteen aad bay ii dhaqaaleeyaan ilmahay ila koriyaan aniga ii dhaqaaleeyaan Ilaahay soo hadeeyo sambuuska burka waxaad moodaa inuu madow yahay laakiin maaha waa kaamarada aad iyo aad buu qurux badan yahay jannada Allah idin wada geeyo qof kasto dariskaaga uga xaq buu kugu leeyahay magaal ha ahaado ama muslim ha ahaado sida loola wada socdo Allah idin wada barakeeyo Allah idin wada xifdiyo meel kasta caalamka joogtaan daawasho wanaagsan inaad ka yeeshaan warajeenaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Allah idin wada xifdiyo walaalahayga qaaliga ah inaad ka bogataan insha Allah warajeenaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh